السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاalahay meel alaaliya meesha aad joogtaan ba ku xiran janaalka maama Muna caafimaad iyo qurux janaalkiina ma sha Allah walaalahay maanta waxaan diyaar idin la ahay in aan fuliyo codsigiini ahaa ma sha Allah tabaarakallah maama Muna waxyaabaha aan Soomaaliya ka heli karno ee vitamins kaas leh kaas hal codsi ayuu ahaa ma sha Allah tabaarakallah walaalo badan ay codsigaas ay soo sameeyeen isla mar ahaantaas walaalaha dhahay waxaan nuujinaynaa ilmaha nuujinaynaa ama uuraan leenahay sideen u heli karnaa vitamins kan ama maxaan qaadan karnaa ما شاء الله تبارك الله دمانتين سو دواده آدي آدي أمهاتنتين فيدباك آئسيسين ما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه وتعالى أنا وحلقهم هذيا هي فيتامينز كان أن كسو حضلي أو كو إيمانا يا مشروبوين كأمكنينية ذا ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى وحنو دحق لي عنتوين أو كم مهم سنبا مركب ما أنت محاميسك نوصارا ما أنت ميسك وحانو صارا شروبو قادم كرتو هويدا بريست فيدينغا ilmaha nuujinaysa ma sha Allah oo anfacaysa ilmaha nuujinayso iyo iyadaba iyo also dhinaca kale iyadana waxa noo saaran cuntooyinkeen ka heli karaa vitamins kan cuntooyin noocee ah ayaan ka heli karaa vitamins kan ma sha Allah tabaarakallah walaalahay marka hore waxaan rabaa inaan idin dhaho sharoobo kasto ama maxaa la yiraahdaa كنيني كستو أو فيتامين أو الصمية wuxuu ku hayaa dhinaca wuxuu ku hayaa cuntooyin jiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray marka hore waxaan rabaa inaan idin la wadaago what kind of vitamins we need marka ay hooyada ay nuujinayso iyo marka ay mataqaanaa hooyada ay uurka leedahay labadaba as well maxaa lahaa iyadoo uur lahayn iyo iyadoo nuujinaynin ba anfici kara ma sha Allah tabaarakallah haddaba fitamiinada qaas ahaan aad iyo aad mataqaanaa u anfacaya hooyada nuujinaysa waxay ka heli kartaa cuntooyin fara badan oo ay ka heli kartaa ayaa jira mataqaanaa fitamiinadaas qaaska ah ee u baahan tahay hooyada uurka leh shakhsi walbana wuu u baahan yahay hooyada nuujinaysa oo haddana mataqaanaa hooyada marka ay nuujinayso ilaa ilmaha laftirkiisa caanaha uu qaadanayo tayadooda waxay ka imaanaysaa hooyada how much powerful ay tahay how much hooyada waxyaabaha ay cunto ayaa iyada laftirkeeda waxay keeni kartaa caafimaad fara badan iyo caanaha cunuga uu qaadanayo waa labada dhinacba win ma sha Allah tabaarakallah labada dhinacba waa ku guuleysanaysaa ilmaha inuu helo cunto maxaa la dhahaa dheelitiran inuu helo caano dheelitiran inuu helo oo caanaha uu naaska uu ka cabayo aysan iska just caano imaaday oo biyo ah aysan ahayn laakiin uu ka helayo vitaminski uu u baahnaa mineralski uu u baahnaa inuu ka helayo ilmahaaga ayaa mataqaanaa aad iyo aad muhiim u ah also hooyada jirkeeda skinkeeda quruxdeeda awoodeeda intaba mataqaanaa vitaminskan kor ay u qaadi doonaan biidnillaahi baari ma sha Allah tabaarakallah marka vitamiinada nooca u baahan tahay ayaa waxay tahay vitamin E vitamin A B1 B2 alif B5 D B2 B6 vitamin K vitamin C ما شاء الله تبارك الله فيتامينada noocaas oo dhan ay mataqaanaa hooyada markay ay nuujinayso in ay hesho ay u baahan tahay dhinaca kale marka ma sha Allah tabaaraka Allah maxaan ka heli karnaa waa fitamiinadan oo cunto ah oo aad iyo aad muhiim u ah oo iyagoo process soo marin dab maxaa lahaa chemical lagu soo darin aan ka heli karnaa الحمد لله رب العالمين waxaan ka heli karnaa cuntooyinkan iyagana miiska noo saaran oo ay kamid tahay ukunta ay kamid tahay ma sha Allah tabaarakallah ay kamid tahay maxaa la yiraahdaayay blueberry uu kamid yahay timirta ay kamid tahay ma sha Allah tabaarakallah kalluunka salmanka ah uu kamid yahay ama fishka hadba saa u taqaanaba orange-du ay kamid tahay waxyaabahaas oo dhan ayaa mataqaanaa ka heli kartaa vitaminadan all maxaa lahaa vegetableskan sida hadda barbarooniga oo kale ma sha Allah wadankeena waa laga helaa canabka tufaaxa muuska maxaa la yiraahdaa ma sha Allah tabaarakallah baradhada ama bataatiga hadba saa u taqaanid qudaarta greenka ah kabsar caleenta maxaa la yiraahdaa hilibka
waxaa kaloo ka heli kartaa ukunta waan sheegay maasha allah kaabajka maasha allah tabaaraka allah waxyaabahaas oo dhan oo sawirkooda ka aragtaan ayaa qaybahan hadda aan kasoo hadlay oo vitaminiska hooyada ay u baahan tahay aad ka heli kartaa maasha allah marka ha u dayma la'aanin vitaminiskana wuxuu aad iyo aad muhiim ugu yahay in aad ka hesho exactly cuntada inaad kala soo baxdo taas ayaana mataqaanaa first priority waxaa ah cuntada in aad kala soo baxdo vitaminiskaaga oo aad qaadato cunto mataqaanaa vitaminiskaas leh maasha allah tabaarakallah saas oo kale hooyada marka ay nuujinayso waxay u baahan tahay biyo badan inay qof walbana waa u baahan yahay by the way in ay hesho biyo badan oo cad inay hesho biyo cad waxaan ka wadaa biyo aan juice iyo wax kaleeto iyo sokor iyo wax kaleeto aan lahayn inuu jirkeeda helo si mataqaanaa oxygenteeda jirkeeda dhiigeeda uu sameynayo iyo wax walba mataqaanaa ee barabar u ahaato maasha allah tabaaraka allah marka cuntooyinkan raalina ahaada walaalahay shaqar yar ayaa maanta ila socoto maasha allah waa meel aad iyo aad u dad badan ayaan ku talagalay inaan mataqaanaa idinku soo gudbiyo si codsigiina uusan idinka daahin aawadeed maasha allah ya marka cuntooyinkan aan arkayno ee wadankeeni laga helo waliba maasha allah walaalahayga Soomaaliya ku nool ya waxaan idin leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabadgaliyo iyo caafimaad baa idinku siiyo wadankeeni sababta oo ah waxa helaysaan cuntooyinkan hadda aan ka soo hadlay fruitskan iyo vegetablekan qudaartan aan ka soo hadlay ee kala duwan waxa heli kartaan iyadoo organic ayaa heli kartaan iyadoo organic maxaan ka wadaa iyadoo dabiici ah oo sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray nafaqadeedii oo dhan wadata ayaa heli kartaan maasha allah tabaarakallah marka ha u dayma la'aanina in aad mataqaanaa aad ka carartaan waxyaabaha intii aad lacag badan aad ku gadi lahayd kaniini vitamin ama maxaa la yiraahdaa sharoobo ama something aad ku gadi lahayd malihi ma fiicno ma dhahayo laakiin maxaa ka fiican maasha allah tabaarakallah waxaa ka fiican inaad naftaada haddii aad heli kartid aad iskula dadaasho waxyaabihii aad ka heli lahayd vitaminiskan oo dhan waxyaabihii aad ka heli lahayd ayagoo natural ah in aad iskula dadaashid ama labada dhinacba aad isku wadid maasha allah tabaarakallah mar walba adigoo dhakhtarkaaga la xiriiraya oo dhakhtarkaaga weydiinaya waayo mararka qaarkood waxaa jirta in mataqaanaa qofka ama dhiiggiisa uu hooseeyo ama vitaminiskiisa aad ay u hooseeyaan oo isla markaas qofka hadduu xanuunsan yahay ama uu tabar daran yahay aysan cuntadu markaa ayna soo qaadi karin ayaa jirta mar walba marka marxaladaas dhakhtarkaaga insha allah biidnillahi alkariim la xiriir laakiin labada dhinacba hand to hand isla wado biidnillahi baari adoo ka faa'iideysanaya cuntooyinka maxaa la yiraahdaa naturalka adoo ka faa'iideysanaya fruitka iyo vegetableka haddana dhinaca kale mataqaanaa in aad qaadato vitaminski mataqaanaa dhakhtarkaaga uu kugu recommended gareynayo inaad qaadato aad iyo aad bay muhiim u tahay laakiin ina meanwhile haddii aad tahay hooyo caafimaad qabta heli karta mataqaanaa in ay hesho fruitska iyo vegetableka hadda meesha noo saaran oo nuujinaysa haddii aad tahay please inta aadan mataqaanaa aadan sharoobo ama kaniini aadan qaadanin play around cuntooyinkan in aad mataqaanaa aad ka samaysato smoothie inaad ka samaysato in aad mataqaanaa siyaabo kala duwan salar ahaan siyaabo kala duwan oo aad ku cuni karto in aad hooyada nuujinayso ay ku cunto ayaa aad iyo aad mataqaanaa muhiim u ah maasha allah tabaarakallah marka haddaba marka ay hooyada ay hesho vitaminiskan dhan markay hesho ilmaha yar naaskaas qaadanaya labada dhinacba hooyadana waxay noqonaysaa strong mom maasha allah qof caafimaadkiisa dhisan yahay skinkiisa dhisan yahay awoodaada iyo quruxdaada intaba ay dhisan tahay ayaa ahaanaysaa dhinaca kale ilmaha aan nuujinaysidna wuxuu ahaanayaa ilmo asagana mataqaanaa aad iyo aad xanuunada banaanka ooga imaanaya immune systemkiisa uu adag yahay helay vitaminiski iyo mineraalkii uu u baahnaa oo labada dhinacba caruurta yaryar marka ay yaryar yihiin oo naaska ay nuugayaan wax ka fiican ma laha in uu cunugaaga uu naaska uu nuugo haddii aad heli kartid si allaale iyo siday kuugu suurtagelayso ka fogow caanaha kaanka mataqaanaa lagu soo meelaha yaala uma baahnid waxaan dhihi karaa hooyo walbo intii aad ku dadaali lahayd ama lacagtii aad ku gadi lahayd candid caana ah ama caana yoogan mataqaanaa magacay doonaan ha ku imaadaan caana booro la iga dheh maasha allah tabaarakallah intii aad ku dadaali lahayd siinta ilmahaaga
waxaa ku dadaashaa siinta ilmahaaga naaskaaga adiga marka waxaa qaadataa cuntooyinkan hadda aan kasoo hadlay nafaqada leh qaado oo adiga mataqaanaa nafaqadaada iyo jirkaaga soo saar si uu cunugaaga uu u helo caano ku filan isla mar ahaantaasna waxyaabihii loogu talagalay oo tayo leh caanahaaga mataqaanaa ay u ahaadaan sababta oo ah breastfeedingka ama naas nuujinta ilmaha naaska nuugaa-i 3 waxyaabood ayuu mataqaanaa ilmaha kale uga sareeya waa mar waa ka jirayar yahay oo immune systemkiisa aad iyo aad ayuu mataqaanaa diyaar u noqdaa xilliga hore lifekiisa qodobka labaad waa ka raxmad badan yahay ma sha Allah tabarakallah oo wuxuu yeeshaa bounding cunugaas hooyada iyo familka u dhaxeeya qodobka saddexaad ma sha Allah qodobkan saddexaad inaan hormariyay ahayd oo kan ayaa ugu horeeyo waa sunno ma sha Allah tabarakallah inaa cunugaaga ilaa iyo 2 sano inaa mataqaanaa anaaska nuujisid caafimaadkiisa raxmadiisa aqligiisa koritaankiisa intaba is on the top ما شاء الله تبارك الله مركا آد هويوينكا ilmaha nuujinayo waxaan aad idinku waaninayaa caafimaadkaaga dhis cuntada aad cunayso fiiri cuntooyinkan aan kasoo hadlay si alaaliisa ku heli karto go ahead and get it ما شاء الله تبارك الله ilmahana in aad gaarsiiso at least ilaa iyo 2 sano inuu cunugaas u naaska u qaato ayaa mataqaanaa muhiim ah saas ayuuna caafimaadka qabaa ما شاء الله تبارك الله hooyooyinka aan nuujinaynin ما شاء الله idinkana waa qaadan kartaan everybody ayaa mataqaanaa vitaminskan daawooyinkan laga helo ay u tahay banaan ay u tahay laakiin qaasatan hooyada nuujinaysa waxa kale oo idin la sheer gareyn doonaa cuntooyinka aadan qaadan karin inta aad nuujinayso iyo inta aad uurka leedahay waxyaabo fara badan ayaa waxa u baahan tahay inaad iska ilaaliso باذن الله باري وحنو ahaan doonaa cajalka xiga ayuu noo ahaan doonaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo maxaa iska ilaalinaysaa xilliga aad uurka leedahay cuntooyin nooca ah iska ilaalinaysaa mataqaanaa ma sha Allah tabarakallah iyo xilliga aan nuujinaysaba waayo marka uu cunuga calooshaada uu ku jirana wuxuu kaaga baahan yahay protection gooni ah marka uu banaanka u soo baxo oo naaskaaga uu nuugayana as well ayadana waa la mid waxyaabo fara badan oo waxa jirta cunuga aad nuujinaysid caafimaadkiisa haleyn kara hadda adiga qaadato waxyaabo fara badan oo waxa jira hadii adiga aad cunto haleyn kara adiga caafimaadkaaga iyo cunuga caloosha ku jiro ama cunuga aad nuujinaysid waa walaashin ماما منا iyo janaalkiini caafimaad iyo qurux maama muna caafimaad iyo qurux walaalahay dhamaantiin insha Allah biidni Ilaahi al-Kariim codsiyo badan ayaa ii yaala walaalo fara badan aa soo codsateen laakiin insha Allah biidni Ilaahi al-Kariim waa soo dadaalayaa idinkana waxaan idin leeyahay caafimaad iyo qurux adduun iyo aakhiraba ana soo duceeya aan isu duceeyno hooyo walba oo uur leh iyo hooyo walba oo nuujinaysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku weydiinayaa adiga Allahumma salli ala Muhammad walaalahay dhamaantiin marka waxaan idin leeyahay meel alaaliye meesha aad joogtaanba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh